بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركلة يوم عما وقرأ قادر دلنورش. ما أنت وحن شرحنا سيدة أو شو كرتا كمبيوتر كاجا ويندوز 7. أنا وحن كشوا يا صفر جوال لكن صفر جوال هن مركات وارتيت وات كشوا كرتا ويندوز 7 كمبيوتر كاجا. وحن سوق عسنا يا VMware أما virtual machine. وحن ده new markaan dhaho waxaan u baxsanayaa magac waxaan u baxsanayaa Atlas ayaan u baxsaday halkee ku shubanaysaa Windows 7 waxaan ku dhahaa Windows 7 ma ku shubaysaa Windows 7 ma ku shubaysaa Windows 8 ma ku shubaysaa 8.1 ma ku shubaysaa waxyaabo badan oo ku weydiinaya laakiin waxaan dhahaynaa waxa ka dooreynaa Windows 7 inaan ku shubnaa rabnaa oon ku shubaynaa markaan siino kadibna waxaan dooreynaa next ayaan sii wadaynaa halka marka noo keeno next ayaan sii dhahaynaa next okay markaas aad ugu shubatid waxaa dhahaysaa start kadib halkuu yaala windowga قبل سيد عادي أهن وصوك عايا ويندوز 7 في فرجوال يعني شوية موجودين في حوالي ويندوز 7 سلوجد فايل وحن فايل كأيان كهذينا ويندوز 7 ك بكو هنا قد بو وحارك دونا شاشة بلوك أو لجرادو ويندوز 7 علامة لو يقانو مركلو شوية كمبيوتر كاغا ويندوز 7 واسكو فيديو هاي ويندوز 7 سي aad ugu shubi kartid computerkaaga laakiin marka aad video-gani in aad ku shubi kartid isku day please Windows 7 waa windowga oo hadda inta badan la isticmaalo oona u fiican windowyada kale Windows 8 ayaa ka fiican laakiin Windows 8 wali tijaabo ayuu ku jiraa start window oo qaatay anjaladii Windows 7 qaar marka bootka la joogo qaar basi ayay ku soo galayaan qaar waxay ku soo galayaan bootka F9 qaarna F12 F2 like saniga F2 F9 F2 F12 ma adeegsanay si visual ahaan ayaa hore inuu sheegay inaad ku shubayo computerkaaga Iran waxay qaadanay marka lagu shubayo Windows 7 ka ilaa 30 minute qarba waxay qaadanayaan 35 qaarna 30 minute waa kana Windows 7 in aad ku shubaysid waxa cadeynayo saa markuu ku imaado Windows 7 kadib waxa dhahaysaa halkaan ayaa next dhahaysaa halka ay yiraahdo next ayaa dhahaysaa next markaad dheedid waa gudbiyaysaa wuxuu ku dhahay install now hadda ma install garay karaa Windows 7 ka appki ayuu diyaariyaa Windows 7 ki markuu ku soo saago inaad fikrisid ayuu u baahan yahay Windows 7 ka next ayaan sii dheesaa kadibna marka aad labada step ayuu ku soo saaraya stepkan marka dayactir ku suubinaysid computerkaaga way laakiin aniga waxaan rabnaa maanta inaan ku shubno custom ayaan dhahaynaa sa markaad ku soo gaarto daaqadan ku soo baxdo partition ma ayaad u suubiyaysaa computerkaaga mase si kale partition ta u suubiyaysid halkaan click siinaysaa kadibna new hadaysa partition ki ayuu subsaysaa
أنا ما عندي بارتيشن مو باهني لكن واسي أنا كشوايو لابس أيام مهمة إيتاي كدب نجستي أيام ليسا نجستي مركز ليدي saddexdan step ayuu ku soo saaray stepka koowaad uu isku fudud yahay stepka labaad ayaa ku dheeraanaya ilaa 30 minute aan sheegay stepkan labaad ayaa gaaray kuwan kalena si process ah ayaa isku saaraan inta aan ku kulmi doono qaybtii labaad ee Windows 7 sidaas iyo amaan Allah waana mar kale iyo maxmaa u kala baqan barnaamijka maroon cilbaxbaan ku tiri maroon cilbaxbaan ku tiri